Jeffrey Epstein wuxuu jasiiradda Little St. James iibsaday bishii Abriil 1998 asigoo ku iibsaday lacag ka badan $7 milyan. nin maalqabeen ah oo lagu magacaabo Arch Cumming ayaa si sharci ah ugu iibsaday, laakiin si uu magaciisa u qariyo wuxuu iibka jasiiraddan u adeegsaday shirkad uu isagu leeyahay oo lagu magacaabo LSJ. markii uu iibsanayay jasiiraddan 1998 ma lahayn dad deegaan ah oo rasmi ah maadaama ay ahayd jasiirad gaar loo leeyahay. markii uu iibsaday wuxuu ka dhisay jasiiraddan guryo kala fogfog oo martida uu ugu talagalay oo ay adag tahay in la ogaado dhaqdhaqaaqa ka dhex jira guriba guriga kale. wuxuuna xitaa sanadkii 2016 uu iibsaday jasiiradda la deriska ah ee Great St. James oo uu kala baxay lacag gaaraysa $22.5 milyan si aagga oo idin loo aamusiyo. si xirfadaysan oo degan ayuu u guda galay inuu horumarin baaxad la ku sameeyo jasiiradda. sanado badan ayayna qaadatay in la hirgeliyo mashaariic badan. waxaa aad loo adkeeyay tegitaanka jasiiraddan, doomaha kalluumaysiga ayaana laga fogeeyay, waxayna noqotay meel dahsoon oo dad gaar ah uun tiigsan karaan. waxaa loo qaabeeyay hab uu qofka jooga jasiiraddan uu si sahlan u arki karin cidda kale ee jasiiradda kula sugan. dukumentiyo mar dambe la baahiyay ayaana xaqiijiyay in habka loo dhisay guryaha jasiiradda ee kala fog uu ahaa qorshe iyo wax laga fikray. waxaa la dhisay dekad yar oo doomaha martida ku soo xirtaan iyo garoomo ay ku soo degaan diyaaradaha gaarka iyo kuwa qumaatiga u kaca. waxaana jasiiradda la dejiyay ilaalo joogto ah iyadoona meel walba la suray kaamirado wax duuba. Epstein wuxuu jasiiraddan dadka u tusi jiray hab aan muran ka imaaneyn, wuxuuna muujin jiray inay tahay meel nasasho oo mustaqbalka noqon karta goob dalxiis. inuu qof hantiile ah jasiirad ka iibsado Caribbean-kana waxay ahayd arrin iska caadi ah oo aan shaki dhalin. muddo kadib jasiiraddu waxay isku rogtay meel howlo qarsoon ay ka socdaan, safarada iyo martiduna joogto ayay ka noqdeen ilaa shaqaale rasmi ah ay yeelatay. Epstein wuxuu bilaabay inuu jasiiradda ka dhigto xarunta uu ku iibgeeyo gabdhaha yaryar iyo carruurta, wuxuuna u arkay meel ka fog indhaha warbaahinta oo ka habboon magaalada New York. kaamiradaha aadka u badan ee jasiiradda lagu rakibay kaliya ma ahayn kuwo amniga qaabilsan ee waxay lahaayeen door gaar ah, waxayna feelasha la baahiyay ay caddeynayaan in kaamiraduhu duubeen arrimo badan oo sir ah. dad badan ayaana ku dooda inaan la baahin inta badan waxa ay duubeen kaamiradaha, waana sababta ay dad badan u dalbanayaan waxa dhabta ah ee jasiiradda ka dhacay ee aan weli la shaacin. sida ku cad xogta hantida iyo feelasha, waxyaabaha ka dhisan jasiiradda waxaa ka mid ah guri weyn oo jasiiradda aad uga dhex muuqda, waana mid leh qolal kala gaar ah oo martida loo asteeyay. waxyaabaha gaarka ah ee gurigan laga soo bandhigayna waxaa ka mid ah kursiga ilkaha lagu daaweeyo iyo sawirro dood abuuray oo derbiyada suran. waxaa jasiiradda ku yaala dhowr guri oo yaryar oo loogu talagalay saaxiibada Epstein ee caanka ah, kuwaasoo leh barkado dabaal oo gaar ah. jasiiraddu waxay leedahay matooro waaweyn oo korontada dhaliya iyo nidaam biyo sifeen si aan loogu baahan xiriir dibadda ah. sidoo kale waxay leedahay 2 goobood oo diyaaradaha helicopterka ku soo degaan si martida looga soo qaado garoonka St. James. in muddo ah waxaa la hadal hayay in jasiiraddu leedahay godad hoose oo qarsoon, inkastoo aan weli la xaqiijin inay jiraan wadooyin dhulka hoose ah. dhismaha ugu caansan uguna muranka badan jasiiradda waa dhismo macbad la moodo oo marar badan qaab dhismeedkiisa la bedelay. markaad dhismahan banaanka ka eegto, waxaa ku yaala albaab weyn oo la moodo inuu alwaax ka samaysan yahay, laakiin ma ahan albaab dhab ah ee waa rinji lagu sawiray derbiga, waana dhismo laga galo dhinaca dambe. sida ku cad baaritaanada dowladda, dhismahan ma ahan macbad diimeed, balse waa hool laga helay qalab muusig iyo farshaxan. sawirada iyo farshaxanka laga helayna waxaa ka mid ah sawirka madaxweynihii hore ee Mareykanka ee Bill Clinton asigoo weliba xiran dharka dumarka kuna fadhiya kursi. sidoo kale waxaa laga helay sawir farshaxan oo muujinaya George W. Bush oo u muuqda mid ku ciyaaraya warqado loo habeeyay hab diyaaradeed. derbiyada qaar waxaa surnaa sawirro farshaxan oo muujinaya gabdho yaryar oo dhib weyn uu ka muuqdo, wuxuuna Epstein ahaa mid ku raaxaysta dhibaatada carruurta. banaanka dhismahan waxaa lagu arkay muuqaal muujinaya wax madax bini'aadan leh sidoo kalena leh jir libaax ama ah waxa la yiraahdo Sphinx. waxaa la sheegaa in waxaani weji ahaan ay ishabahayeen Epstein. dadka qaar ayaana arrinkan ku fasira inuu yahay arrin uu Epstein kaga dan lahaa inuu ku muujiyo inuu yahay boqorka meesha ka taliya. markii ugu horeysay ee la tuhmay lagana shakiyay Jeffrey Epstein iyo waxyaabaha ka dhacay jasiiraddiisa waxay ahayd sanadkii 2005.
markaas oo baaritaan la xiriira Epstein laga bilaabay gobolka Florida. qoyska gabar 14 jir ah ayaa booliska u sheegay in Epstein uu ku xadgudbay gabadhooda, kadibna kiiskaasi wuxuu daaha ka qaaday inuu jiro nidaam gabdhaha loogu qaado guryaha raaxada ee Epstein. sidoo kale shaqaalaha ka shaqeynayay garoonka diyaaradaha ee St. Thomas ayaa sheegay inay arki jireen Epstein oo diyaaradiisa gaarka ah ka soo degaya isagoo wata gabdho aad u daayar, kadibna u sii gudbaya jasiiradiisa. qaarkoodna waxay sheegeen inuu gabdhaha ula dhaqmi jiray si ka duwan martida caadiga. waxaana mar dhacday inay gabar isku dayday inay jasiiradda dabaal kaga baxsato, balse ugu dambeyn la soo qabtay lagana qaaday baasaboorka.